السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم لما السلام ورحمة الله وبركاته. dhammaan akhyaarta waad salaamantihiin salaan kadib iyo qof walba meeshaan iga fiirsanayo salaan kadib runtii maalmahan waxaa socday arrin aad u foolxun oo ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka ahayn. arrintaasna waxaa ku wada daatay dhallinyaro, dumaro, yacni qof walbo, xitaa caruur xitaa, balse waxaa bal soo dhigaaba xoolaha xitaa inay sameeyaan, yacni muuqaalka qaabka macnaha aa ka fiirsaday. arrintaas oo ah barbar challenge. runtii xitaa salaad way gashaa arrinta salaad, subxaan allah, salaada lagu jiraa saana leeyahay haysta kadib waa la istuuraa, subxaan allah. xitaa waxyaabaha kale haddii ay noqon lahayd waa gooni, laakiin salaada ilaahay subxaanahu watacaala dhexdeeda in arrintaas lagu sameeyo runtii waa arrin aad u fulxun. midda kale waxay soo gashay maamooyin jarjaraya basal inaysan isku tuuraan, haddii gacmaha iska jari lahayn ka warso halis maaha. qof weyn maamo weyn waxaa arkaysaa kursi iyadoo fadhiso istuurayso, balse waxay isku tuuraysaa qaab gadaal isku tuuraysaa, cawradeeda dhan loo jeedaayo, lugaha saanay kor usoo aadsanaya markii subxaan allah. arrimahaas runtii waa arrimo aad u foolxun, ceebna ah. muslimiin haddaan nahayn arrimahaas yacni aaday noo saameynayaan. marka waxaan yacni walaalahayga la talin lahaa, horta walaalka arrintaas soo sameeyey cumar, ilaahi subxaanahu watacaala dembigiisa allah dhaafo. waxaan ilaahi subxaanahu watacaala ka rajeynayaa, ka baryayaa inuu dembigiisa dhaafo. sidoo kale walaalaha arrintaas challengeyaashaas sameeyana inuu ilaahay dembiyooda dhaafo ayagana. dadka waxay usoo dhigayaan waxay tahay hal uu arko adigoo sameynaayo, balse maysan ogeen in yacni horta yaa ugu fiican in camalka aad sameynaysid qofka yacni habboon aa is leedahay hala arko yaa waay ilaahay ku abuurto soo maahan. okay, camalka aad sameynaysid ma yahay camal uu ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka yahay. hadduu ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka yahay maba u baahnaba dad kale inaad ogeysiisid mise aad tusid mise meelaha soo dhigtid. balse arrintan hadda lasoo dhigay runtii waa arrin fasaad ah ee fitne ay tahay. ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ka baryayaa walaalkayga cumar iyo dhammaan walaalaha kale ku dawadaydana inuu ilaahay subxaanahu watacaala dunuubtooda dhaafo. anigana ilaahay subxaanahu watacaala hanoo naxariisto, dunuubteena allah dhaafo. bini aadanka waa iska nusqaan, qof yacni 100% ma jiro, iska dembi badannahay. marka yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasiixa watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun. walaalaha waxaa leeyahay si yacni aadan adduunka iyo akhraba si aad uga badbaadaan dhibaatooyinkeeda. marka towbatan nasuuxa ilaahay subxaanahu watacaala usoo laabta. anagna dunuubteena allah dhaafo, adinkana dunuubteena allah dhaafo. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.